بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم SBA waxaan anigu u joogay waqtigii la aasaasayay shantii bangi ugu horeysay aasaastan kamid ahayn baahi jirtay markaas oo aan danaheena aan rabnay inaan wax u doodo aan helno institution danaheena ka hadla oo annagana isku kaanahay danaheena ilaaliya fikrigaas ayaa yimid fikriga wuxuu ka yimid nin markaa CEO ka ahaa jiray bangiga IBS oo la yiraahdo Xasan Axmed Yuusuf markaa waxaan ahayn IBS Dahabshiil Premier Salama iyo waxaan dhilahay Amal Bank iyo bangi lixaad jiray oo markaas isna laakiin gadaal nooga baxay oo ahaa ayaa jiray lixda bangiyan ku asaasnay bangiga kale markaa uu ka baxay systemkii shan bangiyan isugu soo harnay shantenaas bangiyan markaa waxaan sameynay institutionkan SBA waxaan sameynay waxaan leeyahay article association-ka sida ku cad article association-ka oo waqtigaas shantaas bangiyan lagu asaasay shanteena si fiican isula jaan qaadnay ciladaha bangiyada dhexdooda ka yimaada dhowr ciladood oo yimidaan xalinay xilliga aan ahayn aan cusbayn oo asaaska ahayn ka bacdina maalin bangi waan ugu soo biiray maanta oo nahay 13 bangi oo SBA meeshanta ka ahayd maanta ay yihiin 13 bangi haddana waxaan ka shaqeynaa danaheena gaarka iyo danaheena guudba waxaan leenahay xafiisyo waxaan leenahay administration waxaan leenahay system waxaan booqanay adduunyada kale sida ay u shaqeeyaan oo bangiyada kale u shaqeeyaan caalamka associationada kale sida ay u shaqeeyaan waxaan ka qayb galnay shirar badan oo caalami ah oo lagu qabtay different wadamo kala duwan magaca SBA ahaan uu qayb galnay alxamdulillah soo afar waa fiicanahay SBA meel fiican mare aad aan ugu faraxsanahay shaqada xilliga iyo waqtigan qaban caqabadaha jiray waxay ahayd dawladda sa u face bangi oo face garay jirnay dawladdu markaa waa cusbeed waa isla jaan qaadayna sharciyo cusub soo baxay sharciyada kama hadli jirin bangiga dhexe wuu cusbaa isaga ruuxiisu waxaan u baahnayn in sharciyada bangiga dhexe intii bangi walba gooniis uga jawaabi lahay ma fikri midaysan yeelan oo aan ka wada jawaabi teeda kale hay'adaha caalamiga marka aan la shirayno ayadana dib kale naga haystay oo ah u baahnayn inaan u midowno fikrigeena u midowno oo aan tala go'an aan ka samaysano xilligaas waxay ahayd xilli bilow ah laakiin una dhismay bangiga dhexe hay'adaha dawladda institutionska dawladda iyo hay'adaha internationalka inaan noqono dad matala oo magac leh oo ka muuqda inaan noqono ujeedada ugu weyn taas ay ahayd anaga SBA ahaan bangiyada ajnabiga faa'iidana waa noo leeyihiin khasaarana waa noo leeyihiin faa'iido waa noo leeyihiin oo international caalamka waxay tusinayaan in Soomaaliya meel lagu dhiiran karo international investment lagu sameyn karo la soo gali karo la imaan karo bangiyadan waa bangiyo naga waaweyn aad nooga waaweyn oo anaga waqti badan soo shaqeynay anaga xilligan aad u kooban yahay SBA-ga aan joognay ku egtahay shanta aan sabuurnay bangiyada waa bangiyo international ah haddaan kala qaado bangiga Masr waa bangi intaasoo sanadood soo jiray oo 570 branch adduunka ku kala la oo meel kastoo adduunka kamid ah oo joogo maaragtay agent oo si easy oo lacag soo diri karo marka annagana waxaan rabnaa inaan wada shaqeyno bangiyada laakiin haday noqdaan wadankana investment geliyaan oo wadanka ay ku soo kordhiyaan investment laakiin haday noqdaan inay shaqooyinka yararka anaga qabayna ay qabtaan taas hadda wax faa'iido ma keenayso kuwa jooga bay kharabaysaa oo duminaysaa laakiin haday wadan ku dhiiradaan inay maalgelin ku sameeyaan especially hay'adaha waaweyn waxaan ka wada shaqeyn karnaa waxaan ku wada shaqeyn karnaa investment-yada 200 milyan 300 milyan
20% 30% anagu bangiyada localka qaadano ayaguna ay 70% bixiyaan joint venture ahaan uga shaqeyno wadanka ku horumari kara laakiin waxa laga rabaa bangiga dhexe inuu ilaaliyo kuwa yararna ilaaliyo kuwan kalena isku ilaaliyo shuruucna uu kala dhigo aan la isku xad gudbi karin oo ku kalsoonaa inuu bangiga dhexe arintaas wax badan uu ka qaban karo dad aqoonteeda leena ay joogaan hadda inay wax ka qabtaan arrimahaas waana ka wada hadalnay oo waan la socodsiinay marka bangiyada waa soo dhaweynaa bangiyada hadii ku soo xadgudbaan shuruucda waxa jooga anaga manihin mugta sharciga gacmeena kuma haysano sharciga waxa noo hayo central bankiga isaga regulatorkeena cid xadgudubtana isaga soo qaban doono marka waxaan dhihi lahaa ha loo daayo bankiga dhexe ha regulate gareeyo aan ku kalsoonaano bankiga dhexe waxaan ka codsanaynaa inuu ilaaliyo xuquuqda bangiyada yararka ayagana la soo dhaweeyo oo haday wadanka maalgelinayaan ay maalgeliyaan waa soo dhaweynina bankiga aan ka tirsanahay SBA kuma soo biirin laakiin wuxuu ahaa bankigii ugu horeeyo aasaaska ama fikriga lahaa xilligaas waxaa madax ka ahaa nin la CEO ka Xasan Axmed Yuusuf isaga fikrigan keenay oo bangiyada kale iyo isku raadinay inaan sameeyno SBA fikriga ninkaas ka yimid marka anaga waxaan kamid ahay xilladii asaasi 2015 aan bilawnay inaan bangiyada iyo anaga ka wada shaqeyno alxamdulillah waxa lagu guuleystay 2016 inuu noqdo article association ugu horeeyay soo baxo aan shirarka ugu horeeyay qabano oo aan xafiisii sameeyno oo shaqada ay bilaabataba marka waxaan kamid ahay bangiyadii asaasay anaga kuma ku soo biiro kuma jiro waa asaaskii baan ku jirnay anaga adeegyo badan aan qabanaa bankigan horta waa commercial bank and investment bank global investment and commercial aan nahay saasan ku asaasna bangiyada qaarna waxay noqdaan commercial qaarna waxay noqdaan investment marka horeba laakiin anagu labadaba waa isku ahayn waxaan rabnay inuu labadaba isku noqdo waxaan leenahay adeegyo badan oo kamid yihiin maaragtay corporate iyo kambaniyada waaweynka iyo kambaniyada yarka SME-ga la dhaho iyo waxaan qabnaa wax la yiraahdo retail banking ama gooni account-ka personalka shakhsiga oo loo furo waxaan sameeynaa trade finance wax la yiraahdo waxaan sameeynaa investment-ka noocyadiisa kala duwan home finance ama gaadiid ha noqoto waxaan aad u caawinaa dadka dawladda u shaqeeya mushaaradooda ama private-ka u shaqeeya mushaaradooda ku soo dhacaan bankiga IBS waxaan facility oo finance oo ay helaan again si salary-gooda qofku haduu ku soo dhaco meel loo aad la yaqaan ama wax soo gala la yaqaan marka finance aan u sameeynaa waxa kale oo leenahay wax la yiraahdo car banking oo Mastercard iyo Visa card waa bixinaa waxa intaas noo dheer Mastercard-ka waxaan ka nahay principal aan nahay oo waxaan sii karnaa bankiyo kale hadii loo baahdo oo waxaan nahay bankiga ugu horeeyo principal Mastercard noqdo Soomaaliya Visa card-kana wada bankiga kaliya bixiyaba Soomaaliya waa hadda waa IBS oo Visa card anaga u haysana inaan bixino markaan ku qanceen shuruudaheena iyo systemkeena bankiga IBS waxyaabaha la dhihi karo bangiyada ugu duwan yahay waxa audit waa Deloitte International u ah marka waxyaabaha oo nagu ilaaliya ama aan controlka zaid ka saar international audit-keena way systemka aan isticmaalana Oracle database way waxaan kaloo bixinaa adeegyada microfinance oo dadka yaryar loogu talagalay oo aan dhihi karo 80% waxa ka faa'iideysta 80% waxa ka faa'iideysta dadka aan maartay suuqyada iyo joogo masaakiinta aad u isticmaala oo lacagta aan finance badan heli karin waxaan siinaa lacag bilaash way marka anaga kaliya maaha waxaan la shaqeynaa hay'ado badan oo international oo microfinance-gaas buulka aan sameynay ku soo biiray sida bankiga dhexe waxa kale oo kamid ah wax la yiraahdo waxaan dhihi lahaa
Save the Children, waxaa ka mid ah ILO, hay'adahaas oo wada shaqeyno oo buulka ka wada shaqeyno. Waxaan xiriiro oo gaar iyo kuwa hooseba la leenahay bangiyada localka iyo kuwa internationalka intaba waan communicate gareynaa oon isku xirannahay. Waxaan dhihi karaa SBA waxaan dhihi karaa waxaan ka nahay door muhiim ah uga jirnaa oo ama xagga ha noqoto xilligii aan soo marnay madaxtinimadii wareegga ahayd oo halka sano ahayd. Aan is dhihi karaa waxaa la qabtay shaqooyin aad u badnaa, laakiin hadda waxaan dhihi karaa SBA waxay marayaan maanta institution lagu faani karo oo internationally recognized ka ah oo aan wada shaqeyn leenahay hay'adaha internationalka. Bangiyada cusubna waxaan rajeynaynaa inay ku soo biiri doonaan. Assalaamu calaykum.